maamulka xarunta Al-Shifa Herbal ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay adeegyo cusub oo caafimaad oo xaruntan faraceeda Muqdisho lagu soo kordhiyay. Shirkadda Al-Shifa ayaa iyada oo ka jawaabaysa codsiyada dadweynaha Soomaaliyeed ee ku xiran waxa ay xarunteeda Muqdisho ku soo kordhisay adeegyo caafimaad oo isugu jira shaybaar casri ah oo shirkadda ay ugu talagashay in lagula tacaalo bukaanada xaaladaha daran ku jira iyo adeega free delivery oo ah adeeg u sahlaya dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda ku nool in ay ku helaan si bilaash ah dawada shirkadda ay soo saarto, taasoo loogu talagalay in loogu adeego bukaanada aan xarunta iman karin. Xarunta ayaa sidoo kale macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis dhanka dawada ah taa oo la macno ah in shirkaddu ay danaynayso qancinta bukaanada dabiibka u soo raadsada. Xarunta ayaa sidoo kale waxaa dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay qaybta quraansaarka taa oo sida uu maamulku sheegay qaabili doonta bukaano badan oo Soomaaliyeed. Cabdicasiis Maxamed Axmed oo ah maamulka xarunta Al-Shifa ee magaalada Muqdisho iyo Dr. Cabdikariin Maxamed Cali ayaa macaamiisha shirkadda u sharaxaya waxyaabaha xarunta lagu soo kordhiyay iyo sida ay dadka xarunta soo booqdo ugu adeegaan. anigoo ah magacaygu Cabdicasiis Maxamed Axmed waxaan ku hadlayaa ahna maamulka magaalada Muqdisho ee xarunta Al-Shifa. haddaan nahay bahda Al-Shifo walaalaha ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaan maanta u sheegaynaa ama ugu bashaareynaa inaanu keenay ama u soo siyaadinay adeegga delivery ahayd oo loo geenay xaafadahooda. deliverygaas oo ay xaruntu bixinayso wixii qarashaadkeeda ah. waxaan kale oo bulshada magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ku nool u ballan qaadanaa in amal customerka kaarkii lagu qaabili jiray markii qaabilaada hore laga qaadi jiray bilaash looga dhigay, daawadina qiimaheedii aada loo dhimay, dhakhaatiir kaloo cusubna la keenay amal cudurrada qaar la baari doono insha allahu dhakhaatiirta kale ka hadli doonta. waxaan u sheegayaa markaa walaalaha khayrka jecel soo dhawaada. waxaan idin soo kordhinay amal qaybta deliveryga ah adoo gurigaaga joogo ka dalbo gobolada xataa maalin insha Allah hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu ogolaado waxaan ugu geenaynaa bilaash baa loogu geenayaa haday noqoto gobolada wixii soo dalbada daawada. taas ayaan ogeysiinayaa walaalaha khayrka jecel. waxaa jirta qaybo kale oo quraansaar ah oo ay leedahay xaruntu oo ayna joogaan macallimiin u tababaran qaybta quraanka qiimaheedu oo qiimo dhimis ballaaran iyadan lagu sameeyay insha Allah idinka Ilaahay. waxaa jirta markaa insha Allah waxaa jooga macallimiin taqooskeeda leh insha Allah saasaan ku weydiinaya waxaan leeyahay walaalaha ku nool magaalada Muqdisho nawaaxigeeda soo dhawaada. xaruntu waxay u shaqeysaa qaab jarnaal ahaan waxaanu daaweynaa cudurrada guud. waxaan ku soo kordhinay aan u sheeganaa marka bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho iyo daafaheeda inaanu keenay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin inaan soo kordhinay qalabkaas oo aanu qofka assessment ugu sameynano ka hor intuusan daawo qaadan iyo intuusan quraanka uusan la saarin. xaruntu waxay leedahay qayb quraansaar iyo qayb daawooyinka oo loogu talagalay bulshada qaybaheeda kala duwan. waxyaabaha aanu qofka ugu talagalnay inaanu assessment ugu sameyno aanu fiirino si aan u ogaano ama aan u hubino xaaladooda waxaa ka mid ah kow qofka inta badan waxaanu fiirinaa qofkan ma leeyahay dhiikar maadaama inta badan bulshadeenu boqolkiiba 70 aan dhehe ay inta badan ka caawdaan dhiikarka. qofka hadduu dhiikar leeyahay ama maxaan ku dhahay laangiskiisa ama wadnihiisa sanbabadiisu aysan si wacan u shaqeyneen waxaan siinaa taxadir gaara ama dawooyinkii loogu talagalay oo suitable ku ah ayaanu siinaa. waxaan kaloo inta badan aan fiirinaa dadku maadaama aan ognahay wax badan oo bulshadeena kamida in aysan ogeyn HB gooda ama dhiigooda intuu leeyahay
waxaan sameynaa iyagana HB-gaan u fiirinaa haddii ay qofkan HB-giisu dhacsan yahay waxaanu siinaa dawooyinka loogu talagalay oo maxaan ku dhahay ironta iyo ka samaysnaa hemoglobinta oo HB-ga qofka kor soo qaadaya. xarunta dawooyinka dabiiciga ah ee Al-Shifa oo ah shirkad aad u weyn oo soo saarta dawooyinka herbalka ayaa xarumo waaweyn ku leh magaalooyinka Nairobi, Muqdisho iyo Hargeysa waxaana shirkadda la aasaasay sanadkii 2018 iyadoona tan iyo markii shirkaddan la hirgeliyay ay door weyn ka qaadatay dabiibka bukaano badan oo Soomaaliyeed oo uu Alle caafimaad ku siiyay dawada shirkadda ay samayso. مصطفى محمد حسين مصطفى ميلي تبية TV مقالة مقدشو.